haweenka haddaad dishaan haddaad kufsataan hablaha hooyooyinka noqon lahaa ubax maxamed yaxye waxay ahayd 17 jir isku diyaarinaysay in bilowga sanadka cusub ee 2022 ay aqal gasho marna uma rumoobin riyadii ahayd in ay dheeliso qoys ugub ah kadib markii dil iyo kufsi isugu daray qof aan garanayn muhiimadda uu leeyahay aadanaha iyo mudnaanta dumarka dhacdadan oo dadka deegaanka ay laash qaraareen waxay ka dhacday duleedka degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud Allahu akbar waa maalin uu qalbigooda gubanayo waxayna isugu yimaadeen inay u tacasiyayaan qoyska ay mashaqada ku dhacday hooyo Xaliimo oo dhashay Allah u naxariisto ubax maxamed yaxye ayaa sahan u gashay raadinta meydka gabadheeda maadaama ay heshay qabarka ah in gabadheeda la kufsaday kadibna la dilay waxa ay sheegaysaa sida ay wax u dhaceen gabadha geeri iyo nolol mid baa helaysaa laha hada geerideedii baanan hel waxba xoogaa baan si noqday laakiin hadda waa hadda markii hadda xanuun badan si la mid ah hooyadeed waxay dhacdadan foosha xun uur ku taale iyo walwal xoog leh ku haysaa qof walba oo sheekadani ay gaarto aabbaha dhalay ubax waxa uu sheegayaa in si xun loo jarjaray ayna ku baxeen raadka qofka dhibkan geystay wayna bireysnayd waa gabadhaas wuuna kufsaday gabadhaas soo degay doona uur bay lahayd hadda la rabay in la arooso walbiso aad iyo aad baan isku bedelay shucuurtayda hadda saacadan waa kacsantay xaaladayda amnigayga hadalkayga midna ma saxsan tagay meedkeeda ayadana isku duway meedkeeda mariyeedana cushay waa isku duway waxaan raadiyay oo isku taxallujiyay ninkii inaan baadi goobo raadkiisa meesha yimid waan daba galay baadi goob dheer kadib waxay ciidamada amniga Caabud Waaq gacanta ku soo dhigeen la tuhunsane looga shakisan yahay in uu ka dambeeyay falka kufsiga iyo dilka loo geystay ubax maxamed yaxye dhamme farxaan xuseen xasan taliyaha saldhigga Caabud Waaq ayaa sheegaya sida ay ugu suurto gashay in ay soo qabtaan qofka ay ku tuhmayaan in falkan uu ka dambeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim nin la tuhunsana ah oo lagu eedeynayo dil gabar xaabad doonatay oo banaanka magaalada uga baxday muddo ilaa iyo saaka aan ku daba joognay oo raadkiisa aan qaadnay oo go'isii iyo kabihiisii iyo gurigu galay iyo ilaahay meeshuu deganaa waan gacanta ku soo dhignay waxaan ku helay go'aas gadaashiina ka muuqdo waa go'i uu xalay huwaday kabihii uu watay oo uu tuuray raadkii badnaa oo uu iska daba wareegay gurigii hooyadiisa uu galay markuu ka baxay meesha gabadha uu ku kufsaday raadkii aan ka qaadnay guriga hooyadiisa uu galay saa u daba joognay dusha kor u aaday ilaa marka dambe ilaahay mahadiis waxa ku soo guulaysan inaan qabano magaalada dhexdeeda laga soo ma ahan dhacdooyin maqalkooda la jeclaysto in